su-aasha kale wuxuu leey waxaanay arday dhigta maadiga si ahaatee waxaan rabaa in aan usoo jeesto diinta iyo barashadeeda oo arrin fiican oo waajib kugu ah inaad diinta barataa. ilaahay saynis iyo xisaab iyo juqraafi iyo taariikh iyo kuma weydiinayo. fii qabrika waxaa lagu weydiinaya can rabbika wa diinika wa nabiyika, rabbigaa iyo diintaada iyo nebigaaga inaad barata waa waajib. iyo arrin kasta oo waajibaadka ku saaran macnaa ay kaaga xidhan yihiin, siduu uhi rasuulku talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim. wuxuuse leeyahay firqadee baan wax ka bartaa? waxaad wax ka barataa ahlu sunna, atbaacu salaf. waxaad ka barataa wax dadka raaca kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ee koox aan kuugu yeedhay, sheekhna aan kuugu yeedhahay sheekhu ariiqa, xisbina aan kuugu yeedhayn urur qarsoodiya ama bar qarsoodiya oo le amiir gooniya oo ummadda aan ka dhaxayn. ee waxa cad kuugu yeedhaya waxaa cad oo ah ilaahay kitaabkiisa iyo axaadiida rasuulka ee saxiixa ah oo loo fahmo looguna dhaqmo siday u fahmeen ay ugu dhaqmeen saddexdii qarni ee rasuulku cilmigooda iyo camalkooda iyo diintooda iyo fahmigoodaba uu ammaanay markuu uhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum wa haaulaa'i laa yakfawna calayka. kuwaasina kaama qarsoomayaan insha allah biidn illah, kuwa sifadaani